walaalayaal doorashadan maanta iyo doodaheennii iyo ololaheennii kaambeynkan samaynay magaceennoo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dawladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo wakhtigoodii dhaafay oo adduunku inaga jeedsaday waxay noo soo celiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo doorashadaasaynu u gallay ololaha innagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu quruxa badneed dalka adduunka in ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey ilaahay waxaan ka barya subxaana wa tacaala doorashada ka bacdi kow iyo horta ilaahay subxana wa tacala nabad inagu dhaliyo oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiyo kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inuu niyaddooda uu soo hagaajiyo laba inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan aan soo saarnay eenu doorannay nidhi kitaabkan dalkayga ku xukumayna diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeennu noqdo dal lagu daydo hoggaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo dhabbada wanaagsan aniga iyo brofesor abiyan oon arkayo inaanu afarta kaleba kaga habboonnahay inuu ilaahay subxana wa tacala guushana siiya ilaahay waxaan ka baryayaa inay halkaa ku dhammaato qabyaaladii tacliin la'aantii biyo la'aantii sicir balarkii dawo la'aantii baasaboor la'aantii aqoon la'aantii wax kastaba la'aantii subxaana wa tacaala bini aadamkii dawlad u baahneed inay halkaa aynagu dhammaato oy noqonno tusaale wanaagsan oo adduunkao dhan u tusaale ah caalamulislaam baynagu daydaan doonayna insha allahu tacaala fishankaygu waa kaa inay soomaaliya noqoto dayax adduunka u soo baxay caalamulislaam ayaa hortaanu doonaya subxaana wa tacaala maantana gacantiinay ku jirtaa gacanta ilaahay bay ku jirtaa kow kuwa meelaha meeraysanaya ee qabyaaladda la ordaya lacagta la ordaya waxaan leenahay ilaahay baa idinka xoog weyn subxaana wa tacaala xasbana allahu nicma wakiil xasbana allahu nicma wakiil xasbana allahu nicma wakiil wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tahay si wacan baa u shaqaynaysaan dhalinyarada saxaafadda maanta aad baa waabirantiin oo aad baa xiisin u badan yahay waa mahadsantiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad leh ilaaha maanta dalkeenna nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahad leh ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu wanaaggaa inoogu dhammeeyo nabadda ilaahay waxaan ka rajaynaya noqoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag inoo horseeda aan inaba wax turxaan inoo keenin ilahay baynu taa ka baryaynaa maanta anugu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kal laheen dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyaynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u aabulan oo si wadannimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya soo koob somaliland way si wada mahadnaqaysaa ilaahayna wanaag bay ka doonaysaa insha allaahu waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub 3 murashaxadaas ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyaynaynaa anna waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa intiina waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar ii turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayna waxaan leeyahay codka igu roonaada haddii alla yidhaahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka danaynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha allahu guul baan noo rajaynaya qaraha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaan u dirayaa shacbiga Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan ku hambalyaynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland anigoo ka mid ah muwaadiniinta Somaliland ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan ku faraxsanahay
inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey khadkii aan ku codeeyeyna waa ka afartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga somalilan inay si nabadgelyaah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyaah ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kastaa xisbigu doono ha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allaahu waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhammaato waxaan aad ugu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento somalilan inay noqoto doorashadii ictiraafka somalilan haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan shacbiga saxaafaddana waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu